بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن دعوة الكوسو دوادا ورك التلفزيون كعبود وقهذا يوكلا أتكد دعوتان حرنتي سلحية دقمدا عبود وحنا لديارها نجوا محمد عبد الجلال سنة قد بدأ أتكد دعوان دونتان الليدن كيننا إنه كوسو قدبين دونا وحا كمدا رئيس الوزراء حكومة الفدرال كهي الصومالية وكلما قوني أهلا يلنا يو مدحنا معارض كه يوم مدحنا من قبلات الدولة الصومالية رئيس الوزراء حكومة الصومالية وكل لقاطي مدحوينها من قبلات كه جبلان iyo qaar kamid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo cambaariyay dil ay ka geysteen ciidamada Kenya qaybo kamid ah gobolka Gado qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaynu idinaynaa marka horese قدر عليك بالشداء. أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك. wargelin dhammaan waxaa lagu wargelinayaa bulshaweynta Soomaaliyeed ee ku nool degmada Caabudwaaq iyo nawaaxigeeda in ay yimaadeen degmada Caabudwaaq Shariif Maxamed Shariif Ibraahim iyo Shariif Aadan Shariif Ibraahim culimadaasi oo ku takhasusay xanuunada ruuxiga ah iyo kuwa nafsiga ah sida jinka isha sixirka walwalka waswaaska isla hadalka wadna xanuunka joogtada ah sidoo kale culimadaasi waxa ay u leeyihiin daweynta khibrad muddo dheer ah oo gaarayso ilaa 15 sano iyada oo Ilaahay sababtooda ku caafiyay dad badan oo ku nool dalka iyo dibadiisa loogana caalwaayay xanuunada ruuxiga ah iyo kuwa nafsiga ah culimadaasi waxay xarumo kala duwan ku leeyihiin magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo kamid ah gobolada dalka Soomaaliya culimadaasi waxa ay degmada Caabudwaaq joogi doonaan muddo kooban culimadu waxa ay ka howlgalayaan xarunta isku daweynta Quraanka iyo sunnaha Nabiga sallallahu alayhi wasallam ee al-Shifaa oo ku taala degmada Caabudwaaq gaar ahaan xaafadda Horseed agagaarka Ceel Sacuudi fiiro gaar ah isqoristu waxa ay ka socotaa xarunta cusub ee markazu Shifaa wixii faahfaahin ahna waxaad kala xiriiri kartaa eberle xal 7 3329 36 ama eberle xal 8 47 haddaba balantayadu waa inaga oo horay u gaarna markazu Shifaa litadaawi bil qur'aani was sunnah. أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك. dunidaan ku noolnahay gudaha iyo dibaddaba waxa jooga diyaarad ka shaqeeya dalkeena daruuraha korkoodana dul sabeeyo oo idin deegaankeena timid bay u dambeysay maandeeq ilaah mahadi weeye ha u dayma la'aanina shaqaale loo diyaarsho oo adeega daacado dulqaadkoodu badan yahay dayacaynin amaanado macmiishooda daryeela ku diyaar ah halkaan oo ilaah mahadi weeye dayuuradeena maandeeq ha u dayma la'aanin haddaba xafiiska diyaaradda ee Maandeeq Airline waxa uu ku yaalaa bartamaha magaalada agagaarka Hodan Global wixii faahfaahin dheeri ahna waxaad kala xiriiri kartaa telefoon nambarada shaashada saaran Maandeeq Airline maantay Allah magane maantay rabay ahaatee baan sugayno ka dhowree markale isku soo laabasho wanaagsan daawadayaal ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxa uu la kulmay madaxda maamul goboleedyada Hirshabelle Jubbaland iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta waxa uu kulamo gaar ah la qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Hirshabelle iyo siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ra'iisul wasaare mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta waxa uu kulamo gaar ah la qaatay madaxweynayaasha maamul goboleedyada Jubbaland iyo Hirshabelle iyo sidoo kale siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame kulamadani ayaa waxa ay ka qabsoomeen hoyga ra'iisul wasaare Rooble ayaa waxa diiradda lagu saaray sidii looga wada shaqayn lahaa arrimaha hortabinta leh ee ku salaysan marxaladaha uu dalkani ku jiro sida doorashooyinka iyo sidii ay ku qabsoomi lahaayeen iyaga oo daahfuran ra'iisul wasaaraha ayaa mas'uuliyiinta uu la kulmay waxa uu ka dhageystay talooyinka iyo tusaalooyinka ku saabsanaa fikirkooda
ku aadan sidii looga wada shaqayn lahaa arrimaha amniga dhaqaalaha doorashooyinka oo dhammaan mudnaanta koobaan uu siin doono ra-iisul wasaaraha cusub sidii uu shalay ka hor sheegay golaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Dhammaan mas'uuliyiintani ayaa waxa ay bogaadiyeen sida ra-iisul wasaaraha ay uga go'an tahay in dalkeenu sameeyo horumar dhinac kasta ah oo ku dhisan fikir wadaag, waxaana kulamadani ay noqon doonaan kuwo sii socon doona. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu kulan gooni ah la yeeshay madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta magaalada Muqdisho waxa uu kula kulmay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo maalmahani ku sugnaa magaalada Muqdisho. labadani mas'uul ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii si wada jir ah loogu shaqayn lahaa sidii dadkani amaba dalkani uga bixi lahaa waqtigani kala guurka doorashada ee ku qabsoomi lahayd sidii loo qorsheeyay. madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa waxa ugu baaqay ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya in uu dadaalkiisa uu ku qayb galo. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa ra-iisul wasaaraha cusub waxa uu ugu baaqay in dadaalkiisa ugu badan uu geliyo arrimaha doorashooyinka iyo waxqabadka dhinaca amniga. ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa 24 saac ee la soo dhaafay taniyo markii la ansixiyay waxa uu waday kulamo kala duwan, waxa uuna kulamadaasi kula kulmay guddoonka golaha shacabka, hogaamiyayaasha xisbiyada sida xisbiga wadajir, madaxweynaha maamulka Jubbaland. kulamadan oo Muqdisho ka wado ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxa uu ka mid yahay isbarasho iyo sidoo kalena sidii wada tashi loogu soo dhisi lahaa golaha wasiirada cusub ee uu soo magacaabi doono. qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay cambaareeyeen dil maalinimadii shalay ahayd ay ka geysteen qaybo ka mid ah xuduudda Soomaaliya. xildhibaano ka tirsan golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay si kulul uga hadleen dhacdo shalay ka dhacday gobolka Gada, taasi oo ahayd in ciidamada Kenya ay hal qof oo shacab ah ku dileen halkaasi halka 3 kalena ay ka kaxaysteen. falkaasi ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Yado oo 25 kiiloomitir dhanka waqooyi bari kaga beegan degmada Ceelwaaqi gobolka Gado, waxaana dadka la kaxaystay ilaa iyo hadda la yahay halka ay geeyeen ciidamada dalka Kenya. xildhibaan Haashim Nuur Aadam oo ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu cambaareeyay falkaasi isaga oo sheegay in arrintaasi ay ka dambeeyeen ciidamada Kenya oo aanan ka tirsanayn kuwa AMISOM. waxa uuna Kenya ugu baaqay in loo baahan yahay in falkaasi jawaab degdeg ah ay ka bixiso. dhinaca kale xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in dowladda Kenya horay dhibaato loogu qabay, isaga oo sheegay in deegaanada Jubbaland uusan ka jirin wax maamul ah uuna ku baaqayo in la dhiso madaxweyne xilli madaxweynaha maamulka Jubbaland uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. saraakiisha ciidamada dowladda Kenya ee ka howlgala dhanka xuduudda Soomaaliya ayaanan weli wax jawaab ah ka bixinin eedan loo soo jeediyay ee ah in ay hal qof oo shacab ah dileen halka 3 kalena ay kaxaysteen. qaar ka mid ah qareennada Soomaaliyeed ayaa waxa ay sharci darro ku tilmaameen nidaam ay soo saartay wasaaradda maaliyadda xukuumadda hore ee kalsoonida lagala laabtay. xogayaha guud ee ururka qareennada Soomaaliyeed Daahir Maxamuud Cali ayaa waxa uu sheegay in xeerka nidaamiye ee wasaaradda maaliyaddu ay soo saartay uu ka socdo maxkamadaha dalka uu yahay mid gebi ahaanba khilaafsan shuruucda u degsan dalka. shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ku sheegay in markii la soo saaray xeerka nidaamiye ay soo saari karto kaliya cidda awoodda leh, hase yeeshee warqadda uu soo saaray wasiirka maaliyadda ay isla xeerkani khilaafsan tahay. xeerkani ajuurada maxkamadaha ayaa waxa uu sheegay in uu soo saari doono amaba uu soo saari karo kaliya madaxweynaha Soomaaliya, isla mar ahaantaana canshuuraha uu aruurinayo kaaliyaha maxkamadda awoodda u leh dacwadaha la furayo. Abuukar Daahir ayaa waxa uu sheegay in wasiir Beyle uu ka mid yahay xukuumadda kalsoonida lagala laabtay, sidaas darteedna uu yahay kaliya si hayaha xeerna uuna soo saari karin. waxa uuna sharaxaad
dheeri ah uu ka bixiyey xeerka nidaamiye ee ay soo saartay wasaaradda maaliyadda iyo xeer nidaamiyihii hore. taniyo markii siyahayaha wasiirka maaliyadda mudane cabdiraxmaan ducaale bayle uu soo saaray xeerka nidaamiye taasi oo canshuurta looga doonayo maxkamadaha dalka ayaa waxa arrintaasi si weyn uga soo horjeestay ururada qareennada Soomaaliyeed. guud ahaan daawadayaal waxaynu intaasi ku soo gabagabaynaynaa warkii telefishinka Caabud Waaq anigoo Maxamed Cabdi Jalaqsan ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulanka iyaga xiga midkan waxaynu idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo. nabadu waa furaha nolosha. haddii aadan nabad haysan ma helaysid fursad ay wax ku baratid, ma shaqaysan kadib, ganacsiga ma furan kadib. warligo nabada ebo ummado nabada ebo wanu manahi ebo jaahilnimo iyo alla ka cabsi la'aan baa dulmi dhasha. dulmi waa wuxuu dhalaa qabyaalad. qabyaalad baa waxay dhashaa qaran la'aan, qurux la'aan, qaynuun la'aan, fursho la'aan, qadarin la'aan, qabad la'aan, moogta qas iyo qalalaasta iyo qawrac iyo qax iyo hoog iyo boodhan bay dhashaa. ebo warligo nabada ebo ummado nabada ebo wanu manahi ebo wanu manahi ebo wanu manahi ebo amis. nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu ka warramayay ducooyinkiisi waxaa ka mid ahayd inuu yidhi allahuma innaa nas'aluka al-amna wal-iimaan, ilaa waxaan ku weydiisanaynaa iimaan iyo ammaan. marka ammaanku waa shayga keligiisa oo ka qayb qaadan kara qofku inuu waxa weeyaan wax fiican oo la taaban karana uu la yimaado. waa nolol oo nabad la'aan waxba maana baranin heerka ammaanta joogana ma aanan gaarin haddii aanan nabad haysan. shirki la qabtaba adoonshina qorshoosh loo nabadda shaashayniyo shikaakiyo dood shuhuubala iyo shaloombiyo muro waxsiishida iyo la shahoor hadal shakar samaho adooshayba sheegta nuxur daran la sharsharo meel shidee noqoto shacabigu mar rabe ha laga shiro. danta guud u shuureeyo noo sheega wanaag la shaacin karo ushimihii sharwado shib naga dhahaa. intay garmaqaate iyo garaad xume noo tasheen maxaa dhacay guuldariya gafiya ceebaan harayn. gadoodkii muxuuna baday, maxaa gacal kala anbaday, maxaa gaariyo ninkeed isgoobaan war iska hayn, maxaa odag guuyo dhaqay u go'ay gaajiya haraad, maxaa reer gaan ahaa gantoomee gaban ka haray, maxaa guur seegtay inan, maxaa godob layska galay, maxaa gashi layska dhacay, maxaa guryo nabad ahaa la gubay ee galangashaa, maxaa gacal iyo dadbaha colaad loo kala guntee isgowracay sabab la'aan. dagaalkii lama gartaan muxuu go'ashayna badan. nabadee macaanee neecaw doonee iyo barwaaqada nimca lagu qaboobay inta naasir maano laga jaqo nafaqaday naxariista eebay niyadana u rooney naftayda ku jecelo raja aan nusqaamayn kugu naawilayse.